يا قدوميها كبوي محمد عولاد أحمد إن سلامة مسلم كيان من كسلام يا أدبان وفرح سنة هاي قرادة معمولة يسا شركة خاتم استيت إن ييران يقولون ييران إن أنا جو كسعودة شالية دي كبويها أما ذاك الله يبسوعه إن تعبوا aad baan ugu faraxsanahay shir walba Soomaali leedahay inay iga yeeraan haddana aanay waxba ka qabanin shirkayga waxaan ku bilaabayaa salaan diiran oo aad iyo aad u qiimo badan oo nu gudbinayo martida qaaliga ah mudane cali qaliib galayr salaantaas waxaan uga gudbayaa mudane cali qaliif galayr wanaagii uu sameeyay gabooye iyo xumaantii uu keenay labadaba haddaan ku hormaro xumaanta uu keenay magacan caalamka iminka lala cararayo oo 4.5 dowladdii ansixisay oo qalin ku duubtay ayuu wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ودولة عبد الغني صلاح حسن دولم ك 4.5 وحو كسو بلوday dowladaas iyo magacaba meesha laga keenay ma garanay meesha ka keeneen mudanaha xaq buu lahaa isagoo garanaya dadkan isagoo la soo dhaqmay inuu hor istaago uu diido golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka saba ku amro qodobkan in laga saaro dastuurka ilaa ay iminkana way ku socotaa horta waa ku maadsan yahay midaas wanaaga uu noo geystayna waxaa ka mid ah kadib markii geesiga halyeyga maxamed cali samantar uu istaagay difaacidii uu ku difaacay maraykanka dhexdiisa kana qudbeeyay uuna sheegay in uusan maxamed cali samantar ahayn nin qabiila uu yahay nin qaran ah haddaan taas uga gudbo meel walba waxaa laga samaystay isteediyo khaatim isteed baa iminka ugu dambeysay kuwa kalena way soo bixi doonaan saan filayo intaas isteed ee la sameeyey mid aanay gabooyaha dhiigooda ku bixin kuma jiro waayo gabooyaha isteed walba uu degan yahay waxa ugu dambeysay khaatum isteed inta ruux ee gabooye ah ama madhibaan ha noqoto ama muuse ha noqoto ama ibraah ha noqdaan ama waxay doonaan ha noqdaan ee ku dhimatay waxaan u maleynayaa khaatum isteed dadkii maxay hogaaminayay dagaalka inay liiska ugu jirto haddana sida wararkii ugu soo gaareen aanu maan tegin talaax iyo goobihii laga hadlayay waxaana la siiyay 2 xildhibaan golo wasiir malihin golo wasiir ku xigeen malihin waxaana la siiyay 2 xildhibaan waad qiyaasi karaysaan marka heerka ay taagan tahay arrinta inaan dhimanno haddana nala siiyo de wixii aanu xaq u lahayn waxaan xaq u lahayn waa in nala yaso awalna waa nala yasi jiray marka waxaan khaatum isteed maadaama ay curan tahay iminka oon wili aysan macnaha golihii wasiirada aan si fiican loo dhisin bal inay ka noqdaan ama ay bal ilgaaro ku fiiriyaan dadkii uu soo halgamay uu soo dhintay Soomaaliland bay ku soo dhinteen anu waxaan ku faraxsanahay go'aanka ay gaareen oo ah in ay isteed samaysteen aad baan ugu faraxsanahay waayo isteed walba waa deganna Soomaaliland baan u soo dhimanay wixii laga siiyay waan aragnay waxaan u soo dhimanay maxkamadaha wixii laga siiyay waa aragnay hal shabaab baan noo dhiman malaha waxa laga yaabaa hal shabaab inaan haddaan ku biirna aan heleen jagooyin fiicanba marka de meel walba inaan ku soo dhimanno isla markaana xubintayadii aan weyn marka
وأكون مهتمين قدي ماشي إنه مجا يقول يا ري أنا فيلين أنا خطبة ديار سنين ويقول عدديين أنا ما هذا ديار ما هين خاصة الحاج بانو ملاينا إنه هانكي يسوي وعي أن وحنا يسوي وعي عد كي كليل اللي يسوي محبط لقى قبلين هذا واحد كعود سنة يا مرك مدن على خلي في قليل أو شركة تلاحنا جوجين الشركة 4.5 لقون سحية بل وحي وكقبن كرايو 4.5 كاس إلا مرك ورا بقولي يسوي زيران سحيان يسجان الرئيس سارها دولهم كدين عن وجوه ارتجي دين عن وجوه رسالة 4.5 وجوه رسالة دفاعي دي على سمنتر أي حقوق ضد كان لقيت ربنا وجوه ضاد مركب بلينه أصابته أن دفاعي دي إنه أصابته بل سيدي اللي وجوه ارتجي على 4.5 كا أن وكده ذالي لها بل فلان كديان قعد سنة إنه قاله لقى بلعب مانت مدى هذا كله جالية أصلا أن شعبك أصلا هي شعبك النرويج أن هراي وحنا وجه ذي خطبة بدن أو تيفر ما تقول الرئيسي عاد بيوجه عليين مالو بيننا ما دون كهذا أو رنت تابسيو أن تيفر ما تنا كتابه بمريم بواو ده دارتين إن جالية الجبوي على أساس النرويج أي مال لم كنا قنيان أي لا شقينيان سد عدو ولا شقينيان أن إلا أمين كنا ورقته مدلم شامل عيان وحن لور دينا أصله وأنا توجينا ورمدلم كنا نقضى كي كنا نقضنا بقول كي كران أكو قرنت مدلم شامل وحلا جاي بقى هنا اللي حقف ديبتان ملاينا أنا نكودالين إن هاسكي أي قلادن نوقف فرع شركة أنا قاعد بنوقف فرع سنة وها سومالي توسو إسكوتير سده marka waxa loo bedelay Soomaaliya tooso isku tiirsadeen hadba kiina taag daran tunku uga istaaga hadba kiina taag daran taageero wiligiin meesha ahayd ayaa waxa loo bedelay tunku uga istaaga sidii ayaanu tunkana looga taagan yahay war halaga kaco tunka yaga dagaalkiina diyaar baan u nahay meel walba oo jihaad ku jiro waanu ku jirnaa cadka yaga hana la siiyo sadka yaga hana la siiyo yaana la qoorsanin وحق درده يدلهم كلوها يدكن لوجه الله هلا وقشقي وأنا معتنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkay maxamed colaad miyuu ahaa cabdiraxmaan colaad ali dhuux muxuu yiri ogaadeenka noo soo gabiyo waa gar xaajadu ninka odayga waxa uu sheegay meelo badan oo kale horena waa ka sheegay waa run waxa uu sheegay waana xaq in arrimo badan oo inaga lunsan ay jiraan inaka gudaheennana waa jiraan war balse ayatinka talintii Soomaali oo dhan baaba hadda lunsane bal arrimahaasuna waa inoo yaalaani bal maamul istaagay oo Cabdiraxmaan Colaado intuu istaagay u qoondeeyay ergooyin muxuu ahaa gabooye inay ergooyinka ka mid noqdaan oo gabooye ma unaha maxaayad ma dhibaan iyo musadariyo waxaa jira dad yana tumaale la yiraahdo dad yibra la yiraahdo intuba waa jiraan khaatumo waa runtii tirayar oo aan laba ahayn saddex wax badan ba kama badnee baarlamaanka konton qof waa loogu talagalay waxa kale oo loogu talagalay fiqishinni oo dad hawiye وهبر قدر أو عير وأنا ملايين أيام ليهين إيجا لفتو دنا كراسي بالله قلت لك بعشو قبيلة ما هي التلباس كأنك وحنوسني بلدتك عاد وددكتان قليا كسك قبل لينا هنا وابتشران ودقمدا تلاح يندقه أو ينا قيبتو دلسي qaybta laakiin boqolkiiba 20 oo waliba aan dhadhaweyn in la siiyo haweenka loogu talagalay marka bal khaatumo waxayba ku talagashay inay progressive noqoto ama xoogaa inay dib u socod noqon oo dad maaragtay aan taariikhda iyo meesha maanta la marayo aan ogeyn laakiin isaga iyo intii kale wax dhaleeli kartaaba waa leeyihiin kamana rabno inaan idhaahno war khaatumo hadda inahaaba waa yeelee
nagu taageera ma odhanayno waa waajibka iyaga dadka meesha joogay iyo ergooyinka ku shirayay yaa intaa gartay arrinta 4.5 na wax yaraan ka sheego 4.5 Djibouti iyo carta laguma gooyn runtii waxaa lagu gooyey Ethiopia soodara meesha la yidhaaho yaa lagu gooyey qolyo markaa ahaa warlords iyo niman meesha ku shirayay oo Ethiopianiskuna markaa model waxaa u ah noqday 9 qowmiyadood baan nahay hadda ilaa dhowr iyo 80 qowmiyadood baa ku nool oo aan isku af ahayn oo isku dhaqan ahayn oo inta badan maaragtay diimo kala jaada ay leeyihiin 4.5 horta soodare iyo dawladda Ethiopia keenay waa runtiis meeshii ugu horeysay wax lagu qaybsaday waxay ahayd carta Djibouti intaananba xamarba ku noqon yaa 4.5 wax lagu qaybsaday reer carta iyo dawladda walaalaha ee Djibouti iyo madaxweynaheeda kuma eedaynayno laakiin bal taariikhda xoogaa sida ha loo ogaaday inay arrintu saa u dhacday waa mahadsantihiin